وعليكم السلام. ها سو دادي مالك. اوكي شكرا. waxaan rabaa salaada qofka salaada soo gashay adigoo banaanka joogta marka sujaayid muuqda dadka salaada malaga aqbalaya mid kalena oo waxay tahay kobahaada adoo kobahaada banaanka joogta kobaha kullu dukan kartaa ila isku fiirtuwaaye. الحمد لله وكفى صلى الله عليه وسلم. horta ama ya iikaadi takale iikaadi la wanka ilmaamaya ma garat arta labadana aan israaciyo insha Allah labadan su'aalood salaada khuseeya. Number 1 waxyaabaha ajaayibka badan waxa kamid ah adiga ajaayib ma lihid laakiin muslimiinta dacfigooda iyo jahligooda asalka markuu nabigu yimi sallallahu alayhi wasallam 1440 sano miyaa islaada dadku sijaada haysteen iyo technology iyo gogoshan miyaa u malaynaysaa duxaay inay dadku wax walba haysteen? Absolutely. Gogosha in masaajidada gogol la dhigo xadaaraday la socdeen. Masaajidka rasuulku ciid buu iska ahaa dadku gogol saasa ma haysan. nin qayd guntan baa gabar nabiga u tiri guurso nabigu iska daayay baa wuxuu yiri rasuul aniga ii guuri wuxuu yiri orado waxaan kugu guuriye raadi waaye wuxuu yiri go'an baan haystaa bas wuxuu yiri go'a kaligii maxay ku sameynaysaa wuxuu yiri go'a amaada huwanaya oo xiranaya awradaada ku qarinaya ama yadaad siinaysaa wuxuu ana dadku noloshay haysteen lidaalika markay saxaabada aad u faqiirka ahaayeen rasuulku wuxuu yiri ragga waxa ugu shar badan safka u dambeeya salaada dumarkana waxa u shar badan safka ugu horeeya salaada. Wuxuu nabigu u jeedaa maadaama ragga ay goyaal yar yar oo ani maryaha haystaan nin baa laba go haysta mid uu xagga sare ka hoodiyo mid uu xidho oo uu guntado ragga qaar baa saxaabada go quraba leh go'aas qaar baa go ku yara maadaama ay guntadaan oo go iyo aan waliba cawradoodii wada qarinaynin safka ugu dambeeya waxa laga yaabaa mararka qaar kood iyo safka ugu horeeya dumarku inay sarkaan ila masaajidka lagu tukanaya. markaas anigu wuxuu leeyahay mar walba raggu safka hore ku dadaalaan khaasatan kuwa maryaa yar leh. imaam bay lahaan jireen qoys maartay muslimiinta kamid oo dadka soo islaamay wiil yar oo ay dhaleen oo Amr ibn Salama la dhihi jiray wuxuu marka qayd yar baa lahaa qaydkooda ma fuleen buu markaan silaa sujuud baa dabadaydii marka qaar kood ay muuqan jirtay gabar saxaabadii nabiga kamid ah baa qoomkii waxay ku tiri war inta Ilaahay ka yaabtaan ala taquduna maartay istaqaariikum war ninkan qaarigiina quraanka akhriyay waana wiil yar oo wali qaan gaari wiilkan quraanka akhriyay ma dabadiisa naga qarisan wuxuu maalintii baa intii dadkii lacag ururiyeen baa qayd yar oo fiican baa leeso iibiyay farxad wuxuu dhulkii bay qaadi waayay ana horta duruuftaas bahay asalka imaam Bukhari wuxuu baabaystaa باب من صلى على الحسير وقد نضح بالماء نينكي كنت كدي وحبابي نينكي كنت كدي صلي جابوبيو انت بيلغور شيء واي نبي يا انس ايدي وانا بنت ملحان بشيء ومسلميو ايا ويادتي نبي تري نبي الله ما انت نو كاله نبينا marka loo yeedho uu tagi jiray saxaabada radiyallahu alayhi marka Anas wuxuu yiri salli yar oo gaboobay Hamso ninka Hamsa la dhaho xagga sare soo fuulay sawirkaaga naga bedel adeer Ilaahay ku barakeeyo ha tuurina dadka u sheega uun jas wixii qofkii su'aal fiican soo galay aayar ha tuurina lama tuurino asaa iska baxay bas alxamdulillah marka waxay marka nabigii waxay ugu washay salli yar oo biyer lagu rusheeyay
أنا بخاري محوق بابا سنة يعني نسلي كنت كذي أنا دليل واحد دليل له رادين شري إن جوجل لو كنت كان كراينة بنانتها لكن دليل له مر رادين شرين إن عيد يقول كل لو كنت كان كرا مركا أصل كا ضحى ولا شيء مريهني وحن وعصب مركا هذا ملكو إنه نذيف يبقى مهمة أنا صلاة عن دوجا كنت كذا بنكتش على هاي صلاة عن مرتي كنت كذا كاربدي وهي صلاة دي النبي يوحى وافقسن صلاة عيد إيو نيجر كإيو بلكا أدوكو كصباح يو لغوتو كذا با أصل كوافقسن هدي مركا مريا لغوتو كذا أما كاربد لغوتو كذا واتاس النبي كنت كذا يساقو مرتي خمر كنت كان شري صلقاس مرتي حسير كاهي أنس أيدي بكنت كذا لكن most of the time قروشي سوحا هيد عيد يقولك عيد يمد حينين كلايل كمركا قاكو صحابدو markay ku sujuudi kari waayaan ayay maradooda ama shaatigooda ama qamiiskooda gacantiisa ayay dhigan jireen ridwaanullaahi calayhi diintan marka waxa meel fog baa laga keenay iyo faqor baa marta ayaa diinta lagu keenay su'aasha labaad salaada iyo xasuusi su'aashii labaad kabahana nabigu ku tukan jiray masaajkiisa ciida xataa kabaha waa la geli jiray markay saxaabadu jihaadayaanna ayagoo kabooda xidhan bay tukan jireen waxaa shardi ahun inaad intaanad salaada gelin kabaa fiiriso mar dad wayse qabto kabaa iska fiiri haddii ayd markaa ku aragto inay wax dhibi kabaa ku sugan yihiin iska bixi ama ciidda maaragtay ku nadiifi markaa iskaga tuko haddayse nadiif yihiin waa ku tukan kartaa iyana nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi khaalifu lyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaare khilaafa oo wasalluu fii nicaalikum kabihiina ku tukada marka xadiistaas bukhaari iyo muslim iyo sunanka waa xadiis saxiixa wallahu aclam هذا مرتبط شيء شيء سبحانه وتعالى الشيخ إلهي بالخبر على لما المسلمين صار إنه إلهي نو ولكن هذه من عن شيء أو نقدر نحاولها أو بيت نطبقها أي وأوجع إنه تحلي واحد كلية لكن هذه عبرها دي كلية كحرمتها إنه يعبدوا ولي إلى الله يعني إمارة إلهي السوق يعني نفقه فتقطع الأمور نقول وظيفة يعني مايا الحمد لله مسلم يجالس مرة حلان لكن والله هذا اللي كرا ودعوة الميسي نبي الله النوح مركي ويلكيسي قال كها يضو حتى بيه أي روك السعودة وكهري دونتي يا بني يركب معنا بولها ولا تكون مع الكافرين ويلكيجيو نصور مركاسا وحو لها إني ما تساوي إلى الجبل يعصمني من الماء بورتاسا أيام فولي دونا بيا يعلن دوتا مركاسا وحو لها لا عاصم اليوم إلا من رحم ورمانت عيدك بدبادين سامي جرتمد والله كنا حريستين مويان ورنصور مركا أصلك دعوة يدينت يلمها جنا النار كبدبادسو وأبا أمر با إن تقوسيس كداية إلهي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة قلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي بين أمرين مركا absolutely إلا دقيقة ضوضنا بس إنتاني نفتك بحين إنو قفكو مارت دينتا ويرو والدكي أما والدكو المهي سويرو أما إهلكو أي دينتا سويران وواجب لكن اسم دحليسان waayo ehel isma tiidin oo dhaxalka ilaahay baa xarimay marka inaad wiilkaagiyo gaaloobay dacwada adoo ku jira inaad cunto siiso xataa jaamacad ka bixiso xataa si uu wax u barto oo bal hadhow diinta ugu soo laabto ood ku tacabtay la ilmahaagii wax dhiba keensan mayso waayo waa xidhiidhin nebigu mushrikiintii iyagoo dilay oo saxaabadiisii eriyey oo ay ka wada hijroodeen baa mushrikiinta istil uu xidhiidhin jiray wuxuu odhan jiray waxba isuguma keen hadhin ila almawaddata fi lqurba qaraabanimada mooyaane saabulluhaa bibalaaliha waqooyaanka qaraabada baan idinku xidhiidhin doonaa marka iyaguna way ogaayeen nebi maxamed inuu qaraabada dadka xidhiiyo way dhaarin jireen markay wax ka rabaan waxay odhan jireen waxaanu kugu dhaarinaynaa qaraabanimada maartay waxaasaad noo samaynaysaa ugu samayn jiray nebigu marka shayga qaraabanimada ah jacaylka gaalada laynaga mamnuucay waa ku saabsan inaynu u jeclaano qof ilaahay ka kufriyey inaad
maartay diin ahaan u jeclaato oo xaaraan buu kaayay ama jacaylka qaraabanimada ninku gabadh kristaan u qabi karaa oo uu jecel yahay uma jecla inay kristantoy tahay ciise inuu ilaahay yahay inay aaminsan tahay bal taa wuu ku neceb yahay laakiin wuxuu u jecel yahay waa gabadh qurux badan waa gabadh isaga xanaanaysa waa gabadh ahlul kitaab oo aan baxdow hayn oo boyfriend iyo waxaa samaysan ninka muslimka inuu guursado waa loo goli jacayl baana dhex maraya ninka iyo gabadhuna jacayl bay isku guursadaan laakiin jacaylkiibaa muxuu yahay waa jacayl ku saabsan nin iyo gabadh ee maaha jacayl diin ku saabsan lidaalika ilaahay niyada wax walba hadduu inoo qaban lahaa waynu rogman lahayd marka jacaylka ilmaha iyo aabbaha iyo weladkiisa udhexeeya ninka iyo xaaskiisa udhexeeya qaraabada iyo ninku qaraabada yahay udhexeeya iyagoo gaalaba ah la odhan maayo maxaad u jeclaatay leanna labadii nayjar baa kala duwanoo diin umuu jeclaana wuxuu jeclaaday wax kale oo basharka ka dhexeeya inuu qofkani maaratay ku ixtiraamaad u jeclaanaysaa inuu qof fiican yahay oo adduunka anfaca isagoo gaalba baad u jeclaanaysaa marka qofkaad jeclaydna waxaad la jeclaanaysaa khayrka xasanusaturo iyo soo islaamiya alla ninku wacana adaaba iminka markaad qurbaha ku nooshay soranaya dadka gaalada ah waaba dalbaan u dhoofay yurubta ka mid a markaasaa lacag dollaraan sitay waxay 2000 baan manayaa 4 markii ugu horreysay UK imi marka lacag dollaraan gabar baan ula galay ingiriiska London marka gabadh uurlana wahayd gabadhii lacagtiis dollarka ahayd baa ay la warwareegtay say igu sarftaabay garan weyday gabadhii baa iska oyday iyadoo counterka ooyeysa ayaan oyday san ku why you crying I said because of I am at this bank and you came to me I am here to help you and I couldn't help you so why I have to cry it why nan ooya anigii baa hintii ku daray waa u duceeyay waxaan ilaahow qofkan waa insaan yani qofkaas shaqa iyadoo haysato oo just client u yimi markay caawin kari weyday ilmadu ka timi regret inaanay qofkan basharka waxba u tari karin lacagtiisa sitaa ilaahow maartay qofkan dadnima ku jirtay ilaahow diintaada maanta dhammaan ducaynay abtuna markaan xasuustaba waan u duceeyaa in ilaahay soo hanuuniyo marka basharka marka gabadha sidaas hadda iigu shaqaysay iigu oyday weli kalgacalkeedii qalbigaygu ku jira uguma jiro inay gaaladahay ee ixsaankay ii samaysay baa kalgacalkaas iga soo raacay ilaahay baa qur-aanka yidhi hal jazaau lixsaani ila lixsaan qofka ixsaanka kuu sameeya weligiiba ixsaankiisa ilaahu maysa fa biayi aalaa'i rabbikuma tukadibaan marka kalgacalka ku saabsan diin ahaan iyo cibaada ahaan qofkii mar hadduu ilaahay ka leexsan yahay taa waa lagula coloobayaa laakiin qadarka uu ku fiican yahay iyo sababta uu ku fiicnaaday inaad ku xidhiidhiso diintaadu kuu diidi mayso bal dhaqanka fiican islaamkay ka mid tahay wallahu aclam waad mahadsan tahay maya trust walaalo meesha maamul baa ka jiro insha allahu tacaala walaalaha ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeyo dad waaweyn baan nahay aan isqabanno maamulku meeshaan ugu dambayno ilahi idin barakeeye marka qofkii garaacdo macnaha sidii loo kala horeeyay baan u bixinaynaa marka maamulkana maxay eedo aan ka dambayno ilahi idin barakeeye adigaaba ku xigay oo aan kuu soo socday walaalkii trust ku soco walaal saas macnaha safan ku soconaynaa walaalahayga kumaan ay fahmina waan idin jecelnahay waa faa'iidaysanaysaan sheekhnoo idinla joogaa ilahi idin barakeeyo dhammaantiinba walaal trust soo dhawo walaalkeen may waa maasantaa waan ilaalinayay laakiin maadaama walaasha ay dhacday waa kaa horumaray hadayna ahad wadeen bay aamusnay markaa maamulka maanta mesajin baa ku dhahay maya habkaa ila yeertoma walaalo soo dhawo waa maasantaa walaalo sheekh ibraahim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام laba su-aalood baan weydiinayaa midna wuxuu quseeyaa kalaabos midna nolosheeda caadiga quseeyaa su-aasha koowaad waan ku kala qaybinayaa si aan isku dhexgelin ta koowaad waxa weeyaan kalaabos waan joognaa waktina waa kuminaa wakti aad u badan ba waxaa ka socdana dee kolley 100% waa ogtahay ama wax badan waa ogtahay marka maadaama asaan nahay waxaan isweydiinayay qolyaha muslimiinta ah oo anagaan ka mid nahay haddii aan tagno qolalka qaar waxay soo daayaan ama waxay soo duubeen
waxyaalo badan ay soo duubeen oo weliba xitaa ay ku jirto dialoog ama gof ku jirto ama jees ku jiro ama iyagii ama jees xitaa laftigooda marka qaarkood diinta xitaa geliya malala fadhiisan karaa marka iyaga laftigooda kuwa laftigooda muslimiinta sheeganaya ama dhahay anaga muslimiin baan nahay dhahaya anigaa ku jira haddaan dooneen malala fadhiisan karaa mise waxa weeyaan waa markaa waa inaa iyaga laftigooda markaa ka tagtaa iyaga laftigooda way soo gelayaan oo inaa ka tagtid mise gaalada keliya kusaysaa aayadaasoo gaalkii jeejeesaayo unbaa laga tegayaa bal sidee baa loola dhaqmayaa cajibka la soo duubay oo muslimiinta lasoo dhex dhigay oo ummadoo dhan la gaarsiinayo la dhahayo hebel baa wax saas sameeyey ayadaas iyo jeesheeskaas iyo diintaasaa sameeyey qaabkee loola dhaqmayaa day fahamtay maya si fiican baan kuu fahmay si fiican baan fiiri aniga hadda qol kasta miyaad ugu aragtaa anoo ku jira okay qof kasta oo bashar ah ilaahay subxaana wa tacaala isagoo uga diin dhiganaya waktiga uu haystana la weydiinayo waxa ugu qaalisan ee ilaahay uu bixiyaa waa iimaanka waxaa ku xiga waa waktiga ilaahay uu ku siiyey daqiiqad kasta ood haysataa hadday ku dhaafto mar labaad kugu soo noqon mayso your life ilahayna qur-aanka ku sheego wuxuu yihi yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan fa mulaaqih muslimkiiow ilaahay baad ku socotaan waana la kulmaysaan which means qofka inaanu waktigiisa ku lumin cibaadada loo siiyey aakhiriya adduunka in uga faa'iidaysto waxaan laayiqiisa ahayn ama gaal ha sheego ama muslim ha sheego meesha aad dhegaysanayso ama waa inaad faa'iido aakhiro ka helayso ama waa inaad faa'iido adduunye ka helayso sidaa daraaddeed qofka muslimka ah nebiga axaadiis badan baa ka soo aroortay uu nebigu yidhi ma haboono qof muslimi inuu isdulleeyo qofku dullayntu isdulleynaya waxaa ka mid a inuu waktigiisii meel aan shar mooye khayr uga jirin in malaa'igtii garbaha saaray buwaagtiisii ay buuxiso majlis kasta oo bulsha isugu timaado oon ilaahay lagu xusin qofku wuxuu kala kacaa negative buwaag wada negative ilaa walahu tira buu rasuulku yidhi man kaana fi majlis ninka yani majlis qofka soo fadhiista rag iyo dumar walam yadkur illah ilaahay aan xusin walam yusalli cala nabiy nebiga aan lagaga sallin wanaag laysku amrin xumaan layska reebin waxaa meesha laysu imanayaa ay munkar tahay qofkaasi kama qayb qaato ilaa walahu tira buu nebigu yihi sala allahu alay wasalam ilaa isagoo daalac loo raacay nin dhintay oo fanaan yani dadka fanka ku jiray oo loodhan jiray sooraan comedian ahaa laakiin nin aada qalbigiisu fiicna ahaa clipka ayaan dhowd baan facebookgayga ayaan kusoo sheegelay waan ooyey marka arkay ninkaasi wuu u dhintay wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa buuhi ninkii facebooka soo sameeyey inuu ugu talagalay soomaaliya inaanay qof jannada ka gelin anigiibaa ilmeeyey wallahi aladi laa ilaha illa huwa waa ilmeeyey maxaan ka ilmeeyey macnaa ninkaasi xaqiiqada siduu waafaqay dadka soomaalida waa dad reer guuraa ah waa dadaan waktigu micno badan ugu fadhiin aqoon maadiya ma bartaan mid diineed ma bartaan mid dowladeed ma bartaan ma kala tagaan waxay isula yimaadaanna waa shar lidaalika qol baa lasoo furanayaa jawi degan manaa waxa qolalka loo soo furanayaaba waa waktiga in la dhammeeyo qofku inuu waktiga ku dheelana sharciga islaamka wax kaga adagi ma jiro waxa laynoo abuurayba waa inaynu waktiga ka faa'iidaysano ilaahay qur-aanka oo dhan cadceedda iyo dayaxa habeenka iyo maalinta gadgadoonka wareegga dhulka
ilaahay dhammaan wuxuu ku soo gebagabeeyaa inuu ilaahay u abuuray dadku inay ka faa'iidaystaan. looguma talagelin qofku inuu saacad ama second inuu hamal ku noolaado. inna fii khalqi samaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waannahaar la aayaatin liuli lalbaab buu ilahay leeyay. aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman hadday taagan yihiin way xusayaan, wa qucuudan hadday fadhiyaan, wa calaa junuubihim wayatafakkaruuna baa la yidhi. hadaba lu fiirso timekii wuxuu uga faa'idaysanayaa wayatafakkaruuna fii khalqi samaawaati waalard. kownkan iyo sida uu socdo iyo galaxiska iyo biyaha iyo xayawaanka iyo hadalka iyo dhegaysiga iyo nolosha iyo chemical reactionka iyo physicska iyo waxa adduunka ka socda oo dhan bay ka fikirayaan. maxay odhanayaan rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila. ilaahay inta aanay tawxiidka ictimaadin waxay ictimaadayaan ilaahay kownkan mucjizada ah ee ilaa hadda unuga ugu yar noloshu ay ka bilaabanto aan 5% laga ogeyn ama 1% laga ogeyn bay la yaabayaan. maa khalaqta haadaa baatila subxaanaka bay odhanayaan faqina cadaaban naar. marka bulsho dayeysan oo dowlad ahaan u burburtay, dhaqan ahaan u burburtay, diin ahaan u burburtay, cilmi ahaan u burburtay oo yacni dayacantay baynu la joognaa. marka taraas waxa aad igala hadlaysaa waa wax saxa. marka horeba ilaahay inuu ina edbiyo oo mujtamac edeb leh aan noqono oo maalinta uu qofku dhinto lagu xasuusto wax wanaagsan. ilaahay markuu hortagana uu xujo haysto ilaahay waqtigii uu siiyey. yani 4 su-aalood maaratay la weydiinayo waxaa la odhanayaa can cumrihi, war cumrigii aan ku siiyey fiimaa afnaa maxaad ku dhammaysa. lagu odhan maayo kalaab hooskaan ku jirayo qolol baan furan jirayo maaratay cajaa'ib iyo kilib baan isku eriyin jirayo waan dhafi jiray. ilaahay su-aashu weydiinaya waxaa ka mid ah can cumrihi fiimaa afnaa. what you get finish with your precious time. agekii ilaahay ku siiyey maxaad ku dhammaysa. waxaa lagu weydiinayaa wa can camalihi, shaqadaad qaban jirtay camalkaagu muxuu ahaa. wadnahaagu maalintii ilaahay uu raximkoodaa ku abuuray ee wadnuu dhaqaaqay adoo 1 iyo 2 jooga ayuu wadnuu dhaqaaqaa ilaa markay naftu kaa baxayso wadnahaagu waa automatic. wadnaha labada midna diastole la ydhaha midna systolic iyo diastolic maaratay rhythm buu wadnuu samaynayaa jig jag. labadaa dhexdooda inaad ilaahay xusto oo cibaado ka faa'iidaysta ilahay ugu talagalay, ugumuu talagelin inaad iska ciyaarto. waxaa lagu odhanayaa maxaad yani oxygentan ku siiyey maalintaad noolayd ilaa maalintaad dhimatay maxaad ku qabatay. energygan ku siiyey maxaad ku qabatay. udgoonkan ku siiyey maxaad ku qabatay. maxaad qabatay camal. ma camal ibliiska iyo maaratay shaydaanka iyo noloshaada iyo ka bulshadaba dhib ku ah, mise bulshada wax dhib ku maaratay dheef u ah oo naftaada dheef u ah oo ilaahay wuxuu ku amraya. cibaadaadka layna amray oo dhan ilahay waxba kama faa'iido. cibaadaadku ilaahayna amray oo dhan si toosa iyo si dadbanba kownkan inaynu camiro oo bulshadeenu kala faa'iidaysato wahiyo cibaadada ilahay nagu waajibiyey. ujeeddadaaba saas. qofka in jamaaca la ydhaha masaajidada isku kaalaya intii meel joogtaaba si bulshada kii buka iyo kii la aasaayo iyo cadow soo socda iyo nimco timi iyo abaar timi iyo wax la xallinayo baa masaajidka ilahay ugu talagalay. zakadii waa sidaas si leeg, dadkii baa wax la siinaya, soo ururiya xoolo dadka la siiyo. sadaqadii waa la mid, mashaariicdii khayrka la dhisaya waa la mid, xajkii waa la mid. kownkii o dhan baa la ysaga imanayaa. qofkii physically jimicsi buu helayaa, wuu soo cibaadaysanayaa, basharkiibuu soo arkayaa, global universal world inuu ka tirsan yahay buu ogaanayaa, iimaan baa usoo siyaadaya. haddaba ruso macanaa cibaadaadkeeno dhan soontii markay soo gasho globally baa loo wada soomayaa, gaajadii baa la dareemayaa, dadkii baa wax la siinayaa. bisha soon intee qoys oo gaajoonaya baa maaratay ayaa la quudinaya. xajka waxaa ka dhalanaya markuu dhammaaday imise neef baa la gowracaya adduunka, ama ciidul udxa ha noqoto ama hadyi ha noqotee. imise bilyan oo qof baa la quudinaya. zakadii imisaa la quudinaya,
soontii markay dhammaato imise bilyan oo qof ayaa qof walba laga rabaa 3 kiilo oo maarta laga rabaa haddii maanta 1.7 bilyan muslimiintu ay yihiin qof walba 3 kiilo laga rabo 5 bilyan kilo baa one day lagu ururinaya dalal dhan bay beer kabitow noqonaysaa hadoo raso lidaalika sharciga aynu haysanaba baa ilaahay ugu talagalay in bulshada iska faala qaado nabigu wuxuu leeyahay axabu nnaas ila allah dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay anfacahum linnaas qofku ka intifaac badan yahay marka bulsho luntay ayaa taraas walaalagala hadlaysaa ilaahay hadiga ha noo soo celiyo sharka aan maartay iyo murankaan ku jiro iyo maala yacniga ilaahay naga badbaadiyo nabigu wuxuu sala allahu alay wasalam qofka shar waxaa ugu filan in uu ku jiro maala yacni waxaan maartay dantiisa ku jirin dadka soomaaliyeed badankoodu dad dantooda maartay ka fikira maaha waa dad maxaan ku dhahdaa ibliisku lumiyey oo kitaabku manaani walba qoortiisa u geliyey oo waqtigoodii uu ka lumay oo yacni attention raadisa maartay oo qabiil raadisa oo maartay shaydaanku ninka yacnihii yiri soomaalida markii loo keenay social mediaha ibliisku wuxuu ugu talagalay inaanu qof jannada ka gelin ama iyagu ay kusii kala fogaadaan ama yani adduunka kale powerkan iyo isgaadhidani waxaweyan waxay u tahay wax qiimo badan adduunka ganacsiga wuu ku horumaray noloshu way ku horumartay inagu waxaynu kasii kala qaadnay dalkii inaanu degin inaynu qabiil u kala tagno inaynu masiibo inuu qof la coloobo in raxmaddii nagaga yaraato in kalgacalkii nagaga yaraado in dadku sii kala fogaanayo yani cadaawad inaynu maartay isla nimi waxaasaynu ka faa'idnay halkay ahayd inaynu powerkaa ka faa'idaysano oo aqoon diineed mid maadi ah mid bulsho mid siyaasadeed mid waxyaabaha maanta inaga maqan iyo global maartay inagu waxayna weliba oon ka faa'idnay immigrant all over the world tagay powerkaynu ka helay social media iyo wada xidhiirkan inaynu wada nool lahay oo aqoomaha adduunkaynu ka helay iyo dhulkaynu joogno intaynu sukeenno dalkeenna inaynu ku dhisno ayaynu lahay laakiin inaynu ku kala fogaano oo inta ugu liidataa maartay weliba intay social media inoo fadhiisato ay ina fasahaadiyaan oo iyaga macallimiin maartay ay inoo noqdaan inana taabicinaynuu noqono waa dullinimo iyo maartay ibliiskii oo mar labaad iyo shahwaadkeennii iyo dacfigeenni iyo maartay mar labaad aynu isu dhiibnay awalba inagu dhacay marka intaas baan odhanayaa waana wacyigelin caama aniguna dadkaa u garniqi maayo nin maaragtay nin dantiis sii seegay wuxuu doonaba ha ku seegeen oo ama maaragtay diintii fadhi kudirir ka dhigtay ama ilxaad fadhi kudirir ka dhigtay ama qabiil fadhi kudirir ka dhigtay oo waxaan bulshada anfacaynin nin ku jira waxa weyaan maaragtay waxaan leenahay walee nin hurdow maaragtay dantaada halowda baan leenahay maaragtay hala tooso oo dadku ha ka faa'iidaystaan noloshooda iyo waqtigooda wallahu aclam su-aasheedii labaadna sheekh waxa weeyaan haddii aan aniga khusaysa taas haddii aan doonayo in aan ku ekaado muslim baan ahay madaahibtana ay waxyaala yaran kala duwayn wax badan kala duwanayn markaan masaajidka tago si aan doorasho u gelino adheheeda kanba waxbaan ka dooranaa kanba wixii fiicana ka dooranayaa ma imaamkaan ku daba xiranayaa oo hadduu imaamka gacmaa sii deystana gacmaa sii deysanayaa hadduu kan aan tago gacanta madaxa laabtan saarayaa sidee baa iyadan oola dhaqmayaa si aan jes u ahaado keliya qof dheheen mabda'ayga ayaa saxsan keliya oo madaahibtadaa saxsan keliya waxaan raacayaa imaamka oo waxaan ku xirnaanayaa imaamka mararkuwa doashada daqaanta aadan kuu fahmay horta aslan dadka muslimiintii madaahib ma kale leh laakiin waa wax duruuftu keentay awalan madaahibtu waxay kusoo baxeen ridwaanullahi calayhim dadkii nebigu uu 120 kun ee uu xajatulwadaac u khudbeeyey iyo dadku madiine ku tarbiyeeyey ee nebiga diinta ka xambaaray madiiniya maka kumay dhiman 5% xataa saxaabadii makiya madiina kumay dhiman 95% all over the world bay kala aadeen lidaalika aqoontu waxay aaday masar waxay aaday north africa waxay aaday ciraaq iyo dhulkii farisiyiinta ee bershianka ee la qabsaday waxay aaday yurubta bari cabdillahi ibn cumar ibn khadaab
oo saxaabadii nebiga ah baa 3 bilood sida Bukhari Muslim ay wariyeen salaada ku gaabinayay Azerbaijan iyo meesha loo yaqaano dalkii marka istilayeen ee la oran jiray Armenia oo Yurub tabriibay ka tirsantay Armenia saxaabada qaar ayaa Georgia waa dal imika Russia ka mid ah saxaabada qaar baa waxay gaadheen wabiga Volga ee Russia. That's why Bukhara buu ka yimi dalka loo yaqaano wuxuu ka yimi maxaan ku dhadaa maartay dalalkii Russia xukumaysay 7 jamhuuriyad waaweyn Kazakhstan iyo Kyrgyzstan iyo Uzbekistan waa dalalka Russia dhinaca ku haya. Okay, maadaama saxaabadu ay dhulka kala tageen Abu Hanifa taabici buu ahaa fiqiga Abu Hanifa miyaa axaadiista la ururiyay markii la dejiyay maya Abu Hanifa reer Kuufa intii saxaabada soo gaadhay wixii cilmi uu ka hayay ay madhabkiisa ku dhisay wakadalika Imam Malik reer Madiinaha lidalika usuusha Malik ismaa waxa kamid ah amalkii Madiina saxaabada intii uu Madiina kula kulmay iyo dhaqankii reer Madiina lahaayeen maadaama uu rasuulku Madiina ka soo baxay ayuu fiqigiisa ku dhisay laakiin intii axaadiista la ururiyay ee adduunka la isaga yimid dawladda islaamka ilaa communication ku san ma fududayn dadku gaadiid ma haysan oo telefoon ma haysan lidalika ninka sheekh noqonaya waa inuu 20 sano 30 sano 40 sano cilmi daalib yahay culimada qaar baa waxay aadi jireen waqooyiga Afrika markaasay ka tagi jireen Masar bay iman jireen haddaad siyar al-a'lam numala iyo kutubta taraajimta akhrido markaasay wuxuu imanaya haddana Makka haddana wuxuu tagayaa Madiina haddana Iraq buu tagayaa haddana wuxuu aadayaa maartay maxaa la yiraahdaa Asia dalkii Asianka haddana wuxuu aadayaa dhulkii Bahrain iyo maartay ilaa culimadii oo dhan ba adduunka halka fadhida lidalika reer Sanca Ma'mar iyo ninkii loo dhan jiray maxaa la yiraahdaa Abdurrasaaq Sancaani iyo culimadii waaweyneed ee maartay musannafkii maartay Abdurrasaaq iyo kutubtu alifay cadan buu ku noolaan jiray iyo maartay iyo Sanca culimada qaar Bukhari wuxuu ka yimi Asia Muslim Khurasani buu ahaa Abu Daawud iyo waxay ka yimaadeen xaggii ka wada yimaadeen iyo Tirmidhi iyo Asia ka yimaadeen dhammaan culimada xadiiska dalabtay oo dhan waxa carab ka ah yani carabtii waliba maaha carab degay dhulkii carbeed ee waa carabtii hijrootay Muslim maartay ibn Hajjaj iyo Ahmed ibn Hanbal baka Rashiibani inta kale waa dadkii ajamta ahaa ee cilmigii dalbay waxaan uga jeedaa aslan markastoo adduunku isu yimaado oo aynu global village noqono farqii adduunku iyo madaahibta lagu dhisay ilaa waaga hore dadku ismay wada gaari jirin oo adduunkiisa soo gaaray in Imam Malik gacmaha inuu sii daayaa inay daciiftay nabigu gacmaha laabta ku qaban jiray aymadii kalena daliishadeen laakiin Imam Malik xadiiskaas markuu madhabkiisa dhisay aanu haynin laakiin maanta la hayo adiga Imam Malik naanu diin ku hayna wixii la helaba aad qaadanayso baaba fiqi ku dhisay lidalika maanta maalin uu khilaaf ka yar yahay ma jirto Imam madhabkeena Shaafiiciga salaad ka soo waxaynu qununaa حديث كسر وهو ضعيف حتى شافعي أمسن إنه ضعيف هاي إجماعا أوكي إن صلاة الله القنوذ كرامرك أما الروب لوايو أما أراد التماد دول اسكوا فخسين لكن صلاة الصباح نسيجار الله قنوذ مصاررته مايا حديث كوا ضعيف قنوذ وادعو صلاة وحبيه المايو لكن إن مذهبان نقول لصوص صلاة كسا أو صباح نبي مقنوذ جري مايا حديث كسر وهو ضعيف ما أنت إنك كي كل جناته وتران وشافعي بانا ده تعصب نقول الدين نقول مايو لأن already أقوانتي وحي حديث لهيبة وحي قرآن لهيبة وحي عايمد التربة سيدا ما أنت ومارتي tourism كي travel كي communication كي هذا هل كان دتك يقدر يسنيا they are from all over the world علميين أو all over the world لكن هنا ما أنت أو finger tips أيو كتاعين مركا أصلا قف يسوق ولي تعصب أيو مذهب كي هيستا حدي وكتوكيو ده اللي مذهب كدين تيبو كميدي هاي حدبين اسكرع لكن أدوك مرة بقى أكاديمي كنا تهايو الثقافة أو أي كهر رئيسو أو إساقنا خلافك وكجرة إيو أفقي سؤال كتاقية أدوكونا حريصتو هقاميا نقطو
aynan dad huriye maaragtay huriye qodan noqon oo bulshada dacfiga meesha ay kaga sugan tahay aynaan ka sheekayn laakiin meeshii quwadda ku leedahay mar walba aynu dadka maaragtay weeye marka maanta way ka wacan tahay bulshooyin badan hadda madhabka abu xaniifa oo kale ayaa adduunka ugu badnaan jiray waayo dowladdii turkiga khilaafada 800 oo sano cuthmaaniyiinta adduunka muslimiinta xukumaysay ayaa xanafi ahay qadaaga maxkamadaha iyo waxaa loo maaragtay 700 oo sano xadaaradda muslimiintu fiqigii abu xaniife ayay u noqonaysaa xataa qiraa'adka aynu akhrino iyadoo 7 qiraa'o mutawaatira la akhriyo maanta xafsada ayaa adduunka o dhan laga akhriyaa waayo aan xafsada u haysanaa leanna khilaafa islaamiya oo adduunka o dhan xukumi jirtay baa gaadhsiisay wax dhiba male waa mutawaatir xafsadii annaga ka soomaali ahaan shaafici baan ahaan jirnay abu camr aan akhrin jiray laakiin maadaama kutubtii oo dhan xafsa laga dhigay dowlado khaliiji ay yimaadeen oo iyaba caraba oo iyagana ay sii influence gareeyeen dowladdii turkiga iyo siday xafsada u faafiyeen stiil xafsa waa kalaamkii ilaahay abu camr waa labaduba maartay waa qiraa'adii waa rathmu al-uthmani waa rathmu al-uthmani marka waxaasoo dhan macnaha aqoonta maanta iyo academically heerkeenu gaadhay muslimiintu waa advantage lidalika masaajidkaad ku tukataba ee aan qofku markaas qof ama ahlu sunnaha ka leexsan oo isagu salaadii si kale u bedelay ila waxa jira dad afkaaro cusub oo dhammaan muslimiintiiba khilaafsan oo marka horena gaala samaysay imakana manhaj noqday hadda ninka la yidhahdo qaadiyaaniyadoo kale axmed qulaan qaadiyaani ingiriisku markuu hindiya qabsado arkay muslimiintu siday diinta ugu adegiin buu yidhi nebi cusub baa soo baxay manhaj buu noqday waa koox yar wax badan maaha laakiin dee masaajidooda iska leeyihiin siyaabo gaaray diinta u fasiraan maaha dad ahlu sunnaa maaha dad culimadii iyo saxaabadii iyo diintii ilaahay na siiyey ku taagane waa dad ujeedo gaara laga lahaa deedna manhaj noqday khawaarijtu manhaj bay noqdeen muctasiladu manhaj bay noqdeen basharku maaragtay marka hore khilaafka wax kooban laakiin markuu qofkii yaraa ku dhinto aabihii ka dhintay awowgii waa la kala dhaxlaa caadaadka wixii hadhow manhaj buu noqonaya marka dad saas oo kale aimada islaamka iyo culimadu ay yaqaanaan oo manhaj qalloocan haysta oo iyaga aanay ahayn dee in maxaan ku dhahdaa maaragtay dacwo ahaan loogu tago mooyaane in diin ahaan loogu tago waayo iyaguba dee diin ma haystaan marka laga reebo madhabkaad maaragtay masaajkaad ku tukanaysaa ama maaliki ha noqdo ama shaafici ha noqdo ama xanafi ha noqdo maanta khilaafku maalinuu ka yaryahay oo dadka mutafaahimkii diintii ay ka fududahay ma jirto qofka maaragtay mas-uulkaana waxaa la rabaa mar walba inuu mas-uul yahay haddii qofka ugu liitaa ku tukinayo oo ugu aqoonta yar leh waa inaad inta uu haysto ugu cudur daartaa waa inaad wixii service ee bulshada markaa uu hayo diina waa inaad ka qaadataa adiguna aad isku daydaa inaad u faa'iidayso wixii sharana maaragtay aad ka ilaalisaa wallahu aclam anaguna dhammaanteen waan gabadha faa'iidaysanay ilaahay naga dhigo kuwii wala saad noo soo gaarsiisay anaguna walaalaha kalaan u gaarsiino masaladaas fatxa ma joogtaa fatxa usoco السلام عليكم شيخ وسلام. وعليكم السلام. شيخي سؤالتي waxaa gabar waxaa jirta jaar maxay gabadhaas gabar kale oo ka dhaxeeya soo beertay gabadhii markay soo beertay ama gabadha kaliya guriga joogtaa ka tagay ana barbiin biskaasiyeen dambeyntii gabadhii soo beertay baa waxa weeyaan madaxay jug weyn ka dhashay kadib waxaa dhacday gabadhii markay istaag loola orday maalin kadib gabadhii way dhimatay marka reerkii gabadhaas soo beertay dalay baa waxay u soo doortay reerkii kaleeto diyadii gabadhii reerkii kalena way diideen markaa ustaadii ma ku leeyihiin diyadii gabadhaas alxamdulilah wakafa sala allahu calaa xamd masaladaas waa masalo qaadi weeye waxaa loo geenayaa qaadiga ugu dhow aslan waa masale investigation u baahan maaha asalkeedaba masaladu hadday laba qof dhex marto labadii qof dacwo isu haystaan xaqiiqada way maqanta xaqiiqadana waxaa lagu dhisaa wax asal ilaahay rasuulkiisu ayna siiyeen caqliga basharka iyo fidradana waafaqsan qadaaga kale madanigaana waafaqsan labadan qof ee wax isu haysta iyo waxay isu haystaanba waa in la diiwaangeliyaa qofka muduciga ama blantifka waa in uu hadlaa siduu qofkan wuxugu sheeganayo kan loo sheeganayana waa in la dhegeystaa
wixii markhaatiyaal soo aroorayna waa in meesha la raadiyaa. ciddii markaa joogta haddii dowladu joogtana waaba waajib bay ku tahay dhiigga muslimiinta ama dadka kale ee dowladda yani hoos yimaada in dhiigooda ay iyo maalkooda iyo naftooda iyo nabadgelyada dowladda mas-uulka ah. waa in marka qof investigatora oo caqli leh loo diraa. kadib inta badan dilku wuxuu ku yimaadaa ama sabab ama mubaashara ama shardi wax la yidhaahdo. qof baa meel dhagax dhigay matalan waddo bartankeedan loo ogolayn, wuu iska seexday. qof baa yimi, dhagaxii baa qofkii intuu ku turunturooday buu laabta ku dhufto uu dhintay. waxaa leeyahay dhagaxa meeshaa qofkaa dhigay ma meel amniyabaa oo qofkan ku turunturooday baa doontay, mise waa meel aan loo ogolayn oo bulshada dhibaato u keenaysa? qaadigu wuu kala garanayaa. hadduu qofku marka waddo babliga oo bulshadu leedahay uu qofkii shay xasaar doosa oo dhibaato dadka u geysanaysa uu dhigay, wuu ku qaamoobaya hadday nafta iyo hadday maal tahayba. maaha mubaasharo, maaha sabab ee waa shardi. waayo qofku isagaa lugeeyey, isagaa dhagaxii doontay, laakiin dhagaxii ayaan meel munaasaba olin, suntii baanu meel munaasaba dhigin, dabkii baanu meel munaasaba maaratay ayaanu ka shidin, baabuurkii baanu meel munaasaba maaratay ku baarkin garaynin. marka wuxuu shardi u noqday jinaayada qofkaas ama bulshadaas soo gaadhay. waxaa laga yaabaa suuq dhan oo gubtay, nin gaadhi meel ku baarkin garaystay oo xidhay, oo suuqa haddii maaratay gaadhigaa meesha aanu dhigi lahayn ama gurigaa ka dhisi lahayn, meeshuna ay meel baadila tahay, in lagu helo oo xabsidaa in lagu xukumo, maalkiisa la xaraasho. waayo bulshadu inay wada noolaato waa asal usuusha diinta iyo maxaan ku dhaha fidradeenna ka mid ah. waxa kale lagu qaamoobaa waa sababtu mararbay ayay ka baawar u intay mubaasharada. tusaale ahaan nin baa waxaa la yidhi hebel buu dilay, waxaa la yidhi markhaati keena. rag markhaatiyaalaha ku furoo la dhaariyo muslina. ninkii waxaa ku caddaatay inuu ninkaa camdan u dilay, reerkii lahaana way qisaasteen oo qalaf ninkii bay ka siiyeen. markhaatiyadii baa waxay mar dambe yidhahdeen been baanu sheegayn, ayagana waa la dilayaa. laanna ninkan in la dilo sababta markhaatiyadaa iska lahaa. reerkii dishay ila iyagu ninkoodii ka dhintay bay raadinayeene xabad lagu samayn maa. laakiin ninkii markhaatiga furay inuu ninkan la dilay, ninkii hore uu isagu dilay, ninkaa markhaatiga furay ayaa qoorta laga jaraya. sabab baa loo dilay. waxaa lamid a adoo maaratay qof weyna baad sun soo qaado caruur madrasad ay ku jiraan baad suntii dhex dhigtay ama nacnac sun aad u qaybisay. absolutely sabab baa adaa sababtale waa lagu dilayaa haddaan markaa mag lagu afin. waayahay mubaasharada waxaa la yidhahdaa arrintan markaad ka hadlayso oo kale sabab iyo mubaashara wada socota. meeshii buuq baa ka dhacay, gabar baa u yeedhay gabar, dad kalaana dilay. tii u yeedhay waxay noqonaysaa musabab, kii gacanta lahaana wuxuu noqonayaa mubaashar. hadday dadkaasi marka wada qaangaar noqdaan, kan sababta leh ee wanjalay dowladdu waxay xaq u leed inay tacsiirto, intay doonto inay edbisay ku xukunto. laakiin dhiiggiiyaa laga rabaa ninkii dhibta geystay ee isagu la baashiray. marka saasaa umuuruhu ay maaratay u baahantahy qadaa iyo cilmi iyo ciddii ehel ahayd in loo geeyo oo marka xaqiiqada la gaadhay ee arrintu aanay fadhi ku dirir iyo maaratay u noqonin. marka waxaad maaratay ay u laaban doonaan insha allah si loo sameeyo official qof officialoo xogta ururiya say wax u dhaceen. qofka wuxuu yeedhay intay leeg buu sabab ku leeyahay, intay leeg buu mubaasharo ku leeyahay. waa hawl u baahan marka in maaratay sidaa loo gudagalo oo marka xaqiiqadii sidaa gunteeda qadaa ahaan loo gaadho. marka intaasay u baahantay wallah.